sheekadina maanta waxaan ku soo qaadanaynaa arrimaha Bollywoodka. Filim marka oo soo baxay dood fara badan ka dhaliyay dalka India. Dadweynaha India ayaa qof walba fikradiisa ka dhiibtay filimkan oo qasadiisa ay tahay jacayl ay jeliyaan lamaana dhexdhexaad ah. Haddii ay tahay markaad kugu horeysan soo booqato fadlan furo calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino. Haddii hore nala joogtana waa ku mahadsantahay la joogaaga. Filimkani ayaa soo baxay sanada 2020. Filimkani ayaa sheekadiisa waxay tahay lamaana dhexdhexaad ah kuwaas oo ku jeliya jacayl. lamaanahan ayaa jacayl ku jeliya filimka. Mishra Batra iyo Ifani Khanna ayaa filimkan ku jeliya lamaana dhexdhexaad ayagoo jeliya jacayl. Sheekada filimka ayaa waxay ku saabsan tahay jacayl. Aktarka filimka jeliya Mishra Batra ayaa ku jeliya magaca Yashwanti Batra halka xaaskiisa Ifani Khanna ay ku jeliso magaca Katrina. Mishra Batra ayaa filimkan ku jeliya Bostole halka xaaskiisa ay tahay Gurujoog. Dalka Hindiya waxaa dood xoogan dhaliyay filim cusub oo ka hadlaya jacaylka dadka dhexdhexaadka. Sanjay Mishra iyo Ifani Khanna ayaa ku jeliya say iyo xaaskiisa. Filim dhawaan la soo saaray oo ay soo bandhigtay shirkadda Bollywoodka ayaa soo jiitay dareenka dadka shineemooyinka kale ee Hindiya, waxaana jira in lagu kala aragti qaybsan yahay. Filimkan oo lagu magacaabo Angrezmin Kehte Hain oo macnaheedu yahay afka Ingiriiska waan ku jeclahay, wuxuu ku saabsan yahay lamaane wada jooga oo maraya da'da dhexdhexaadka. waxaana jirta in sayga uu guurka ku qanacsan yahay balse xaaska ay saygeedu ka rabto wax badan sida jacayl iyo farxad in uu siiyo ayada mar walba. Atooraha oo ku jeliya magaca Yashwanti Batra ayaa ka shaqeeya wakaaladda boostada halka atriishada oo ku jeliysa magaca Katrina ay tahay Gurujoog balse kuma faraxsana guurkooda 25 sano jirsaday. Waxay ku nool yihiin magaalo Himaysa ee ku taala webiga Ganges ee waqooyiga Hindiya. Xaaskuna waxaa mar kasta ka hadlaysaa waxa maankeeda ku taagan oo ma aha mid qarsata waxa caloosheeda ku jira. Isaga wuxuu qabaa in mar hadiiba uu biilkeeda siinayo guriguna u soo hoydo in intaasi ay ku filan tahay xaaskiisa, balse Katrina waxa ay rabtaa waxaas wax ka badan oo waxay rabtaa mar walba saygeeda in uu siiyo jacayl aad u fara badan. Aflaamta Bollywoodka oo inta badan jacaylka lagu matalo dad dhalinyaro ah. Dadka qaarkood ayaa dhaleeceeyay filimkan halka kuwa kale ay sheegeen in uu ka turjumayo dhibaato bulshada ka dhex jirta oo u baahan in xal laga gaaro. Mid ka mid ah dadkii aragtiyada ka dhiibtay filimka ayaa sheegay in dadka intooda badan ay aragti qaldan ka qabaan jacaylka iyagoo u maleynaya in uu dhex maro wiil iyo gabar oo keliya. Mishra wuxuu sheegay in xiriirka ka dhexeeya isaga iyo xaaskiisa uu ahaan lahaa mid lagu caajiso haddii uusan jacayl meesha ku jirin. Waxaa jira wax aan qoyskeena ka dhaxalnay, qof kastaba xushmad ayuu u hayaa kan kale, balse ma jiro qof jacayl u muujin kara lamaanihiisa, ayuu yiri Mishra. Qaybaha dambe ee filimka Mishra waxa uu garwaaqsanayaa gefka uu galay iyo in ay tahay inuu xaaskiisa jacayl u muujiyo. Wuxuu sheegay in xaaskiisa ay qurux badan tahay isla markaasna uu jecel yahay cunada ay kariso. Waxaa dalka Hindiya dhaqan hirgeli ka ah in xaaska kaalinteeda ay tahay qabashada shaqooyinka guriga, wax kastana ay markaasi iska noqonayaan wax caadi ah. Gabadha Bharta iyo wiilka uu sodoga u yahay ayaa garab ka siinaya inuu xaaskiisa farxad geliyo sida ay filimka ku jeliyaan. Dad badan ayaa qaba in ay tahay wax aan habboonayn in bulshada dhexdeeda lagu muujisto jacaylka kana mid ahayn dhaqanka Hindida. Tusaale u ah da'yarta hadda joogta waxay ku qanacsan yihiin in ay muujistaan jacaylkooda halka waalidkooda markii ay dhalinyarada ahaayeen ay ceeb ahayd ama laga xishoon jiray in jacaylka la muujisto.